بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan idin akhriyayaa bayaankii ay isimadu soo saareen shirarkoodii u socday ayaamaha kale. bismillaahir rahmaanir rahiim. dawladda Puntland bayaan isimada Puntland Garowe bayaankii koowaad. sida la wada socotaan waxaan ku jiraa xaalad doorashooyin oo ay Puntland shantii sanoba mar ka qabsoonta, sida soo xulitaanka xubnaha golaha shacabka, doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, taas oo la filayo inay noo qabsoonto 8 bisha koowaad 2019 haddii Ilaahay idmo. haddaba iyadoo laga duulayo marxaladda aan ku sugannahay ayaa isimada dhaqanka ee Puntland waxay isugu yimaadeen shir caasimadda Garowe iyagoo ka wada hadlay in la helo doorasho ku dhacda si degan oo xasilooni ah oo xor iyo xalaal ah. iyadoo taa laga duulayo waxay isimadu kulamo iyo wada tashi la qaateen qaybihii ay khuseysay geedi socodka doorashadu, sida musharaxiinta, guddiga ansixinta iyo khilaafaadka xildhibaanada iyo saraakiisha loo xilsaaray arrimaha amniga. wada tashi iyo xog waraysi dhab ah kadib waxaa la isla qaatay qodobada soo socda. 1. in la wada qaato mas'uuliyad wadareed, cid kasta ay xil iska saarto sidii loo heli lahaa doorasho ku dhacda nabad iyo xasilooni. 2. in guddiga doorashada lagu aamino in ay soo ansixiyaan soona saaraan xildhibaanadii beeluhu soo xusheen isimaduna soo saxiixeen. 3. in musharaxiintu ay yihiin mas'uuliyiin muwaadiniin ah, xilna ka saaran yahay la shaqaynta iyo kalsoonida guddiga ansixinta iyo laamaha amniga. 4. in taliyayaasha amniga ay u xilsaaran yihiin amniga guud ahaantiis, mas'uulna iyagu ka yihiin. musharaxiinta xilka madaxweynuhuna ay u saman yihiin, ayna dhib kala kulmin xorriyadooda dhaqdhaqaaq, si wada jir ahna loo wada shaqeeyo. qodobadaas ayaa dhammaan la isku wada raacay, waxaana guddoomiyey isimada Puntland. waxay isimadu ugu baaqayaan shacabka Puntland inay ka qayb qaataan ilaalinta amniga iyo xasiloonida si doorashadu inoo ku dhacdo jawi xasiloon oo degan sidii dhaqanka inoo ahaan jirtay. waxayna isimadu la socon doonaan mar kasta xaaladda inta doorashadu inoo qabsoomayso insha Allah. waxaan Ilaahay idinka baryaynaa inaad sanadkiisa ku gaartaan nabad iyo xasilooni iyo horumar iyo aayatiin wacan. isimada Puntland wallahu waliyu tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.